أبو ما كان سيقول وأبو محمد أو كعلي كان سيقول حالي وين يقول بلسنين واكن كنت كاجية بالبقول كان كهل بيقول مركز سندي أو صبب كان سيقول سؤال بام كويدي مركا كنتم بوكو سيي بقولنا بوكو حجي ها الله نحرسته marka su'aal baan ku weydiinayaa sidaan u oranayo erigan oranayo waa inaad u tiraahdaa speedkan ku oranayana waa inaad u tiraahdaa markaasaan ku yidhi waayo waan oranayaa soo daa markaasuu igu yidhi neelkaagan adhiga ee badiga iyo sii daba digaalahow waxba aniga hayso dhudhun hore dhudhun dambe dhudhun ganaflayne cidda aad u sii dhudhun hore dhudhun dambe dhulku ganaflaynayso aniga hayso dhudhun hore dhudhun dambe dhudhun ganaflayne waan fahmi waaye imika laakiin waa anigan kuu sheegaya hagaag daawadayaal kulan wacan oo wanaagsan meel kasta oo aad daafaha caalamka naga daawanaysaan caawa barnaamijkan idiin wadaa maaha siyaasad mana aha dood mana aha war mana aha fanaan aan waraysanayo hase ahaatee waa barnaamij markaad daawataan ama codka ama muuqaalka iyo codku markuu idin soo gaadho waa barnaamij aad xusuusan doontaan qof ummadda Soomaaliyeed Soomaali Maxamed meel kasta oo ay caalamka ka joogto xusuus dheer ku leh la wada jecelaa qof intuu caan yahayna caan ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qofka marka hore waxaan idinka codsanayaa isaga iyo dhammaan waalidiintii geeriyootayba in aynu 3 daqiiqo u aamusno faatixadana u marno oo aad wada taqaanaan curadkiisii Maxamed Axmed Xasan Cawke oo ah wiilkiisii curad ayaan ku waraysanayaa oo barnaamijka marti iigu ah Maxamed Axmed Cawke marka hore waa kuma halkuu ku dhashay halkuu ku barbaaray halkuu wax ku bartay halkuu ku soo koray haye bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan akhyaartana daawanaysa Maal TV aad iyo aad baan u salaamay salaanta muslimka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أياني الله هاي وانكسو دواعي حسن مال ديدر ولا لهوتا وحان كل شيء يعني سؤال شادا حتى ننقضو مقدشو اسبتال كمدينة أيان كل شيء كل سقال بقول لحية ستيتكي بعد مركا مقدشو لبا سنة قد أيام شوقي بعد لبا سنة نوان يرابا dagaalkuna wuxuu dhacay anigoo 2 jira ka bacdi markaa waxaan u qaxnay anagu hooyo ayaa lahayd Allah u naxariistay passport Djiboutiana oo Djibouti bay noola qaxday walaashayda iga yarina uurka ayay ku jirtay markaa adu Djibouti ayaan ku yar barbaaray oo galaaskii koobaad anigoo 6 jira la igu daray ka bacdi 6 jir markaan dhigtay galaaskii koobaad ilaa kii labaad ayaa 7 adigu xagaagii markay ku beegan tahay Allah naxariistay aabo oo bariga FM ta Hargeysa furayay ayaa halkan Hargeysa ayuu ku sugnaa oo qoladii BBC da Bushowski ayuu la socday adu hooyo aabo bariga way noolaayeen oo hooyo waxay dhimatay Allah naxariistay 2001 bishii 12 halkoo aabana geeriyooday 2015 bishii 11 intaas ayay kala horeeyeen adigu bariga ayaan halkan Hargeysa anu soo xaga baxnay ka bacdi aaba ayaan kulanay aaba adigu markaan kulanay ayuu hooyo Allah naxariisto ku yiri Djibouti ha iga celin oo afka aan ku hadlayay bariga af Soomaaliguna waa igu adka oo afkii Djibouti kan ku hadlayay ya khiba ha oo heedaasan hayay moogta ka bacdi adigu Djibouti ku celinina gabilay oo idaday degan tahay ayuu hooyo ku yiri gabil ha la geeyo gabilay baan adu waxbarashada ka bilaabay on galaaska afraad Sheekh Maxamed Warsame aan galay ilaa 8 markaan marayay ayaan
hargeysa naloo soo wareejiyo hargeysa iyo cidda u soo wareegtay kabacdi halkan ayaan haddana secretary-gaan form ka bilaabay hargeysa oo 17 May baan galay moogta adoo waxbarashadeeda halkaasaan kasii waday weli waxaan joogaa Somaliland oo kamaan bixin dalkana waan ku suganahay haddana waxaan deganahay magaalada Wajaale waka maxamed waxaad jirtay had iyo jeer markii aad eedda la joogtay aabbana allaha u naxariistee uu noolaa waxaad jirtay dee inaad ahaydeen 2 nin oo saaxiiba oo kaftamo oo wax isweydiisto oo way jirtaa intii dambe intii hore horta aabba waxaanu saaxiibnay 2006 oo intii hore waa imanayay waa noqonayay oo 2006 waa markuu ii sheegay uu yiri dalka ayaa joogaysa maalinta markaa waxaa ka horeysay su'aal ahayd war maxamed maxaad haysaa 2006 anigoo markaa yaraanimo balwada bilaabay markaasaan idhi aba waxa ma hayo markaasuu igu yidhi waa nin weyn loogu wanaagsan waxa ma haye arrin ila kaalay aduu way ila fogaatay arrinkii maxaad ula tagtaa bal aabo maanta kugu dhowda hoodee Afrika baa lagaa kaxaynayaa aduu waxaan eegaba oo ayaa maalmaha ka mid ah aan ogaaday inaan jaamacad kale ku jiro oo jaamacadaasoo la yidhaahdo Indhaariya oo dee Afrikadan aan joogay Somaliland ku suganahay waa la wada qaylayaaba oo caleen akhtara mooyaane oo aan waxbarashadiiba aan ka yar habsaamay markaasaa maalin dambe ayuu oo ciidi ku beegantahay buu aabbo ila kulmay markaasuu igu yidhi war yaa maxamed waa lagu waayaalkeed ka dhacday waa joogaa isagoo markaa waa xagaab moogtay waa 2006 markaasaan ku yidhi aabbo waxay la kaalay baad tiro tiibaan raadinaya laakiin hadda waan hayaa oo maxaad haysaayo markaa waxaan ku yidhi jaamacadda Indhaariyaan ku jira aabbo markaasuu yaabo uu yidhi jaamacadda Indhaariya waa maxay markaasaan ku yidhi dawo wadankan oo waa wadankan la wada qaylayo oo xitaa jaamacadda riyuhu igu cusub tahay waa dadka fahansiiyo jaamacadda Indhaariya waxay ahayd waa raamsigan akhtarka ee qaadkan uu la cunayo maalintii waa maalintii 5 macallin baa dhiga ka ugu horeeya rooti markaa soo toosto waa abaabul markaasuu ku hagayaa halkaa mar oo halkaa kale ka qaado Sheekh Mirqaan baa Farxaan baa ku xiga markaasoo waxaa kaloo ku xiga macalinka kale ee Sheekh la yiraahdo Mirqaan xisaabiyo walaaciyo walbahaarna way ugu dambeeyaan intaas ayuu qaad ku leeyahay oo maalintu waa maalintu Mirqaan bari ka dambayso Mirqaan ma aha watan la yiraahdo oo halkan Itoobiya looga yimaadayo de waa akhtarkaas baa la cunayay marka waxaan uga jeeday jaamacadda kale aan dhigtaa inay wax kala aqoontii wiiga tagay waxbarashadii aan ku jiray intii uu weydiinay aabba moogta markaasaan yidhi maxaa baan aqoon baran akhtarun baan bartay sheekadaas aad moogta adoo على كل حال wuxuu yiri waa la qaylaaya oo daqaadna waa la cunaaya laakiin aqoontaadii iyo waxbarashadaadii aabba dib ugu noqo adoo markii dambe waayahay oo sidaas aan isku ogeyno maalintaas ayay igu yiri waa joogaysaa adigu halkaaba abba kula ma jeceli dalkan kula jecel maalinta uu runtii sheegay igu yiri halkaaba kula ma jeceli oo halkan xamil igu yiri ayaan aniguna markii dambe wadalkaaga hooyo meel ku dhaanta ma jirtay iska xamil hadalkii waan waxbarashadii dib ugu noqday oo aan halkan u soo wareegnay Hargeysa sheekadu saas ahayd oo aan jaamacadda Riyaha iyo wax uga sheekeeyay barigaasaan aabba markaa aan saaxiib waxa jirta maalmaha ka mid ah oo markii aad geli jirteen gurigii xagga aad isaga iska dhigaysay oo isagoo Allah u naxariistay guriga jiifa way jirtaa waxay ahayd wada waxa ka horeysay codka ayuu yar aanu Abdulxiin Carab la yiraahdo waa heen u shaqeeya aniguna bariga IT baan dhigan jiro oo 2011 baa ahayd codkan ba aan
Abdiraxiim baa iga duuba anigaba maaha baan ku yidhi moogta marka aniguna waxaan qola ayaan u yeergelin jiray wararka oo ahayd wargane iyo jaraa'id soo baxa weygii 2 cisho oo hubsada waynu soo noqon doonaa waa beriga ayaa haydo maalmaha ka mid ah maalintii aan canjilay aabba codkiisa u yar ekeysiinayay guriga ku sugnayd waxay ahayd xawaadlan deganayd oo aabaan balansanayno wiga yaraagay moogta oo aroornimadii oo meelaha 10kii waxbay gaadhay markaasaan idhi aabba seedu toosisaa markaasaan codkii aabba isku ekeysiyo una canabey ayaan idhi moogta biyihii maa lai diiriyey halkaasaan ka bilaabay allah u naxariiste markaas walaalma tooste waryaa maxamedow nimco markaas halkaa eedana nooga yeedhay markaasaan anagoo fadhiga taagnaa aan soo dhaqaaqoon biyo u diiriyo aabba biyo waan kuu dhigay maalintaa ayaa isna uu soo jeedo way maqlayay intaan ku hadlayeyba kabacdi markii uu soo toosay meel iyaloo aabbo ayayna way nooleed beriga allah u naxariiste ilaa uu hooyadii uu ag fadhiisto uu la sheekaysto mu bixi jirinba aabbo oo hooyadii agteeda ayaan u gogoli jiray allah u naxariisto ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo dhammaan iyaga iyo ummadda nebi maxamed be markaan u yeer gogolay ayuu ii yeedhay waryaa maxamedow waxaa dhacday markaasuu ii yeedhay aabbo markaasuu igu yidhi warba maxamedow kaalay markaasuu igu yidhi xalay waniga balansanayna waa kan kontokaagiye bal 100kan ku hel buu igu yidhi markaasaan idhi oo sabab markaasuu yidhi su-aal baan ku weydiiyey markaa 50 buu ku siiyey 100na wuu ku xujeeyey allah naxariiste marka su-aal baan ku weydiinayaa sidaan u odhanayo ereygaan odhanayo waa inaad u tiraahdaa sbiidkan ku odhanayana waa inaad u tiraahdaa markaasaan ku yidhi waayo waan odhanayaa soo daa markaasuu igu yidhi neelkaagan adhiga ee badiga iyo sii dabadiga digaalahow waxba aniga hayso dhudhun hore dhudhun dambe dhudhuganaflayne cidda aad u sii dhudhun hore dhudhun dambe dhulku ganaflaynayso aniga hayso dhudhun hore dhudhun dambe dhudhuganaflayne waan fahmi waaye imika laakiin waa nigan kuu sheegaya markaasaan idhi igu celi aabbo markaasuu yidhi ma kugu celiyaa haa 3 jeer buu igu celiyey waan fahmi waayo dhudhu mooyaane wax kaleba waan gala markaasuu igu yidhi allah naxariiste hooyadii buu yidhi ayadaa ka qoro waa nayl 2 dhudhun iyo dhudhun dambe naylkaagan 2 dhudhun ee hore dhudhun dambe dhudhun ganaflayn aniga haysoo 2 dambe hore dhudhun hore dhudhun ganaflayn halkaa ugu sii 2 dambe hore dhudhun hore dhudhun ganaflayn ugu soo 2 dambe hore dee degdeg ayaa loo odhanaya adoo markii dambe ayaan saan ugu celcelinayay alla yar keenay laakiin maalintan waan la waayey oo waa su-aasuu ii weydiiyey moogtahay adigu markaa qoyskii cid kale ma kusii xujaysay xujadan waxaa jirtay aniga laftayda markii aan xafiday ayaa baadeeda yeelo oo soo xagaabaxay oo sakariya ugu yeeryahay ayaa anigoo aan guriga wada joogno guriga ay deganaayeen oo markaa somaliland bay yimaadeen way soo xagaabaxeen iyaguna oo sanad iyo 2 sano ka bacd waxay ahayd mooyaane mase xasuustee ayaan sakariye anoo u sheekeynaya ayaan intan ku idhi moogta maxaa tiri wigu yidhi markaa isaguna sidii aan aabbo ugu yidhi oo kale kaasuu yidhi igu soo celi waa yaraa moogta sakariyana berigaa oo mu gaadhin daadan imika u yahay soomaad garan markaasuu igu soo celiyo markaasuu hooyadii u tago hooye maxamed bal wuxuu leeyahay baka hadliyo wuxuu leeyahay markaasay aayada ii yeedhay sakariya hooyale maxamed waxbuu leeyahay bal hooye waa maxay kaasaan ku idhi waa kelmaduu hore aabbo anigaba igu yidhi bal garow unbaana idhiya hooye wax kale maan odhan adu kabacdii adu yarkaa yare noogu wada yar baan ku idhi waan weydiiyaa aniguna